إنه قد قال الموضوع إن ما أنت وحكوا سابسن يا قصة وقصة ياب لأكو دعدي قبل غير لبنان قصة دني ما أهم مدمل أول وقصة دب أو دعدي gabadhani waxay ahayd gabadh uur leh uurkeeduna wuxuu ahaa bishii 7 gabadhan ayaa u dhimatay sabab la'aan amba wax cuduroon hareerin waqtiga umil lahaydna waxa uu harsanaa oo kaliya 2 bilood oo waxay ku jirtay bishii 7 laakiin ilaahay muu qorin inay dhasho iyadoo uur la ayaa gabadhii ku dhimatay balse dhaqaatiirtii ayaa waxay ogaadeen inuu ilmihii wali ku dhex nool yahay caloosheeda dhaqaatiirtii ayaa zawjkii qabay waxay u sheegeen inuu ilmihii wali nool yahay waxayna u sheegeen in haddii lagu sameeyo qalliin laga soo saari karo ilmaha halkaasina ay taalo fursad aad iyo aad qaali u ah laakiin odaygii qabay arrinkaasi wuu diiday wuxuuna codsaday in la isla aaso iyada iyo ilmahaba isaga oo diidanaa in meedka qalliin lagu sameeyo sidii baana la yeelay oo waa la aasay kadib maxaa dhacay maalin maalmaha ka mid ah ayaa qabriga waxa garab maray ninkii ayaa wuxuu maqlay cod ilmo yar oo ka dhex yeedhaya qabriga waqtigaasina waxay ahayd markay 3 bilood ka soo wareegtay dhimashada gabadha balse ninkii ayaa rumaysan waayay oo waxa uu is yiri waa wax iska khayaaliya laakiin codkii ayaa ku soo noqnoqday oo sii batay kadib ayuu qabrigii ku soo dhawaaday balse uu u hubiyo waxaan dhagihiisa ku soo dhacaya markii uu qabriga ku soo dhawaaday ayaa waxa uu ninkani ogaaday inuu codku ka dhex baxayo qabrigan ninkii ayaa si dhaqso ah u cararay wuxuuna si degdeg ah u gaarsiiyay biliiska isla markiiba ayaa waxa goobta soo gaadhay biliiskii iyo qaar ka mid ah culimada waxa isla markiiba guda galeen inay qabriga soo xaadhaan balse markii ay saa u baneeyeen qabriga waxa uga soo baxay arrin ka wada yaabiya dhammaantood wixii meesha yimid waxay ugu dhex tageen ilmo yar oo bagga hooyadii hoosta kaga jira isla markaana jaqaya naaska hooyadii marmarka qaarna oohinaya subxaana alkhaaliq ilaahaygii qadaray in muddada intaa ilag ilmahaasi noolaado kii ay hooyadii dhimatay ayaa haddana waxa dhinayd ajasha ilmaha yar ilaahay baana qadaray oo saacadiisa dhinayd subxaanallah qisadani ma aha mid meel awaala amba ay cidi soo aliftay waa qiso dhab ah oo ka dhacday dalka Lubnaan haddii uu muuqaalkan ku qanciyay fadlan sii sheer garay oo asxaabtada la sii wadaag aad baad daawashadii noogu mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh